maanta magaalada Woodward shir jiraayid ku qabtay Chief Caaqil Cabdillaahi Maxamed Dheeg oo ah Chief Caaqilka guud ee beesha Guuleed Garaad. Chiefka ayaa ka hadlay xaaladda iyo halka uu marayo samayntii garaadkii u yeelan lahaa deegaanka Woodward ama beesha Guuleed Garaad. caaqilka oo ka hadlaya arrimahaasi kana soo saaray go'aan waxa uu yiri sida tan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. saaka halkan waxaan ka jeedinayaa baaqaas oo ku saabsan shirweynihii Guuleed Garaad ee ka socday Woodward kadib beesha Guuleed Garaad markuu geeriyooday garaadkii Garaad Abshir Saalax Ilaahay u naxariisto bedelkiisii iyo umuraha beesha shirweynahaas oo laga arisanayay mudana ka socday magaalada Woodward waxaa run ah oo xaqiiqa shirkaasi in wax badan qabsoomeen hase ahaatee dhamaystirkiisii ay jiraan waxoogaayo hadhaadi ka ahi oo aan ujeedadii ugu weyneyd aanay dhamaystirmin waqtigoo iska koobnaa dadkoo aragtiyo kala duwan qabay siyaasado soo wajahay khaladaad fara badan oo dhinacyada intaa ka imanaya iyo waxyaabo awgood waxaan gartay go'aansaday markaan eegay baahida loo qabo garaad loo dhan yahay oo lagu kalsoon yahay oo tayo leh oo bedela garaadkii hore ee magaca weynaa markaan arkay duruufaha ku gadaaman ee siyaasadeed ee dhinacyo badan ka imanaya shirkayaga markaan arkay doonisaha dhinacyada beesha gudaheeda ku jira asayse quman tahay in laga buuxsado oo loo tala badsado oo si dhaba oo mug iyo miisaan leh loo doorto garaad loo dhan yahay waxaan go'aansaday muddo 2 bilood iyo 10 casho 15 casho meelahaas xilli dayreed biyo dayreed ku quman dadku salmugi u fadhiyo in dib loo dhigo shirka beel walibana ay dib isugu noqoto ay beel waliba saxdo waxa ay leedahay iyo waxa kale ay kala saxdo waxaan jeclahay in aan idin dareensiiyo on ka codsanayaa beelweynta Guuleed Garaad meel kasta joogto dibad iyo gudo in arrintaas si miyir qable oo miisaan leh looga bogto loo tala badsado aan lagu degdegin garaadka xulashadiisa soo iyadoo garaad la dooran doono si dadku dooran jireen loo dooran doono ayaduna wada garanaysan inaan cid gaariis jeclaysiin inay wax loo horto cid gaarina aanay meel u fariisan annaga garaadku naga go'a beelaha Guuleed Garaad waxaan ku codsanayaa arrintaas inay ka midoobaan cid walibana soo turxaan saarto dhinacyada garaadada beelaha madax dhaqameedkooda dhulbahante waxaan u gudbinayaa baaqaygaas anigoo ah kusiisimaha garaadka beesha Guuleed Garaad ahna Chief Caaqilka guud ee beesha Guuleed Garaad Cabdillaahi Maxamed Dheeg waxaan ku gunaanadayaa wixii musha u dana ilmaheeda u dana arrinta laga buuxsado Guuleed Garaadow intaasaan idin farayaa midnimadiina iyo isku duubnidiina ogaada jaan fudayd iyo wax jeclaysi gaarana garaadku ku iman maayo haddii alla yiraahdo ka bogashu ku imanaya xulasho sax wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. si kastaba ha ahaatee hadalka caaqilka ayaa ku soo beegmaya xilli ay qaadatay muddo dheer dhisitaanka ama samaynta garaad ay yeelato beesha Guuleed Garaad. waa Cabdi Ciro, Kelson TV, Woodward.